saddex iyo soddonkii baarlamaanka 60kii minashiibiyadaan kaga riday intaa waa hoos joogay oo raggii meel u mara waayay xukuumadda uu maanta helayo ayaan u arkaa. dadweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaraarkii maxkamadda sare ee Somaliland ay maalinimadii shalayta ka soo saartay dacwado ay hore u gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland iyo siyaasiyiin madax bannaani oo la xiriiray furashada ururada siyaasadda ee Somaliland. haddaba shacabka kala duwan ee magaalada Burco oo la hadlay maqalmooqa caalamiga ah ee Home Cable TV ayaa waxay yiraahdeen qaraarka ay maxkamaddu soo saartay waan taageersanahay boqolkiiba boqol waan taageersanahay waxa weeye arrintaasina waa arrin aad iyo aad looga dhursugayay xisbiyadana in la furo waanu taageersanahay boqolkiiba boqol haddaanu nahay dhalinyarada gobolka Togdheer waxaanu leenahay madaxweynahana 2 sano ha loo kordhiyo ururadana ha la furo waxa weeye doorasho waxa weeye dadku uma baahna maalin walba xisbi nin leeyahay oo uu dhakada kaga fadhiyo dalku wuxuu u baahan yahay xisbiyo la wada leeyahay dadku ay ka soo wada baxaan rag badan oo aynu oran karno miisaan aad iyo aad u weyn bay dalka ku leeyihiin ayaa u baahan inay xisbiyo furtaan dalkana wax ka aynu rajaynayna inay wax ka bedelaan dalkuna wuxuu u baahan yahay dhiig cusub iyo xisbiyo cusub iyo doorasho cusub buu u baahan yahay. والله أنا وحنا واركا إن قوانكي وصحنا قدوميها محكمة السرية آذن حاج على وقعتي حسبية معارض كنا سياسيونيين كحكومتنا وحنا لا نهاي دورشة حلي جذي قبو دورشة مدحتويدين يدعويان ديسمبر مركا أي قاعدنا وحويان وحلي فرست أورضة مركا وحنا لا مدول بيان حلي جذا للدافين مدعونا هذا مدكرر سيدوني دورشة حلي جذا كوبت نوفمبر بالله محكمة دو وحوي لبا دعوود بمش مريي marka labadii dacwadood maxkamaddu may kala cadeyn manay kala cayimin qaraar waxa weeye go'aan ishuwan oo isxambaarsan ayay soo saartay laakiin minka xeerka wali wuxuu fadhiyaa golihii baarlamaanka ayuu ku dhex jiraa kamanu soo dhamaanin waxa weeye xildhibaanadii dacwadda keenay maxkamaddana dawaatii maxkamaddu go'aanka u sheegtay rasmiga ah inaanay waxaan ay ku doodayaan iyo waxaan ay wadaan sharci midna ahayn marka sababtu intaas ay noqonaysaa معارضي محافظ بدي حالة تواركي سنة سوين با لغو قنعي ولو سو دويي وحانو سو جيدين يا دمان معارضك دالك إنay u turaan dalkooda in rabitaan kooda shakhsiga in ay ka weynaysiiyaan ama ay uga tanaasulaan dastuurkeena marka maxkamaddu waxay qaraarka ku soo saartay 24 qof oo muwaadiniin ah oo ay magaalada dacwad u gudubsay marka waxa leeyahay waa in dib loo dhigaa ururada waayo doorashadii madaxtooyada ayaa iyadana meesha joogtaa marka waxa leeyahay meesha weyn la laalo oo ay marka doorashada madaxweynaha la qabto ka bacda ururada la furmo saa ku dhaqan galaan waan ka maxkamadda sarena waanu la soconaa waanu soo dhaweynaynaa bahda reer Burco haddaan nahay dhalinyarada reer Burco aad baanu leenahay waanu soo dhaweynaynaa qaraarka ay soo saartay maxkamadda sare waayo waxa loo baahan yahay dalku inuu furfurmo oo ay daraf ila daraf la lahaado Somaliland in kooto cid ugu xidhnaato looma baahna marka aad baan soo dhaweynaynaa in xusbiyo cusub oo aragtida shacbiga matali kara ay soo baxaan hadhow oo wixii dal waji cusub ay siyaasadda dib u yeelato ayaa loo baahan yahay waanu soo dhaweynaynaa xusbiyada cusub insha Allah taala in loo furo qaraarka maxkamadda ay soo saartay waxa la oran karayaa waa qaraar xilligiisa waaqiciisa taagnaa madaxweynihii barnaamijka keenayna uu ku mahadsan yahay in baarlamaankii ay laasho waxooda waxa ilaalinaysa cadaaladda iyo in baarlamaanku ay sinaadaan in doorasho ama ay ururadu ay furan yihiin marka runtii waan soo dhaweynaynaa marka qaraarkaas wuxuu isku jiray laba qaraar buu isku jiray mid waxa weeyaan xeerka xidhi foordhiinkii in la raaco qaraarkii hore 2011 ee la ansixiyay dawladda hore siilayo midna waa qaraarkan dambe ee golahan soo saareen marka labadu way isdaba yaalaan waxa weeyaan midna in golaha la furo baan leeyahay ururada marka doorashada madaxtooyada dhacdo ka bacdi marka taa ay qaatay ayaan soo dhaweynayaa oo in maxkamad marka la galo baan leeyahay doorashooyinka madaxtooyada ka bacdi in la furo ururadii qaraarka aad iyo aad u soo dhaweynaya saddex iyo soddonkii baarlamaanka 60kii minashiibiyadaan kaga riday intaa waa hoos joogay anigu waxaan u arkaa inay maanta kala furfurantay oo nin waliba awoodiisa tallaabsanayo oo bashbash iyo barwaaqo tahay oo raggii meel u mara waayay xukuumadda uu maanta helayo ayaan u arkaa waxaan anigu waafaqsanahay in la furo ururada maxkamaddu qaraarkay gaadhay 1411 in la furo ururada oo doorashada ay ka hor la furo bishan la yiraahdo May ayaan anigu waafaqsanahay waayo
beesha dhexe keligeed ma leh waddanka beelaha darafyadu inay naga soo qayb galaan oo inala yeeshaan waddanka oo ay ka qayb galaan waddanka la wada yeeshaan annagu aanu doonayno aanu jecelahay ururni leeyahayna ma doonayno waxaanu doonaynaa asxaabta reer somaliland oo ummadda mujtamaca reer somaliland inay wada yeeshaan. cabdirashiid timir maqal muuqa caalamiga ah ee Home Cable TV Burco.